waxaan ka codsanayaa dhalinyarada reer Taybasaban ee magaalada London in aan codsigeennii ahaa baahida ama abaarta kulul ay ku dhacday in aan wax gaarsiino qaybtan waa qaybta labaad ee ma garanaysaa hadda sabwanaag aan soo gaarsiinay raashinkii 45 qoys ka koobnaa oo qoys walba raashin gaaraya bil aan ma garanaysaa ugu talagalnay qaybtii horena waa anigii markii hore soo bixinay halka ay ma garanaysaa aan gabilay alxamdulillah ilaahay baa mahad leh waxaan ilaahay ka baryaynaa marka ugu horeysaba ilaahay gacantiisa ayaa weyn inuu ilaahay raxmadiisa u shubo raxmad aan waxba dumin danabana lahayn inuu ilaahay u shubo oo qabow oo dad iyo xoolaba ay ku naaloodaan marka waxaan leeyahay dhalinyarada reer Taybasaban amaba cid walba oo ku abtirsabta afka Soomaaliga in ay mar walba ay ka warhayaan dadkooda jilicsan annagoo eegayna cadaaladda waayo waxaad moodaa dadkeena in ay ka dhamaatay cadaaladdu marka inaanu cadaaladda aynu sinno oo bari iyo galbeedba kolba meeshii ay wax ka jiraan abaaruhu loo gurmado waxaan marka ugu horeysa aan u mahad celinayaa dhammaan cid walba ka qayb qaadatay barnaamijkeenan maanta waxaan jeclahay insha Allah taala halka waxaan la socday aadan Ismaaciil oo isagu hawsha maanta noo fududiyay xaaji cali axmed cali caydaruus nimcaan naasir iyo cabdirashiid jaamac kaahin mustafa iyo anigoo ibraahim ismaaciil axmed ibraahim armaani oo idin leh waxaan ilaahay ka baryayaa rabadaan tan soo socota in aynu kolba meeshii taagto ay ka taagan tahay dhibaatadu in aynu Taybasaban aynu insha Allah taala soo gaarsiin doono waad arki kartaan baan u malaynayaa deegaankan waa deegaan abaar baan ka jirto ilaa iyo inta soo soconayna aanan baad iyo biyo midnaba aanan ku arkaynin haddana waad arkaysaa iskuuladii baa furan alxamdulillah taasna waxa weeyaan in ilaahay hortii oo ay ma garanaysaa ay u taagan yihiin meesha inuu ilaahay wax u taro waxaan jeclahay kulay in laba su'aalood aan dadka shacabka wax weydiiyo in ma garanaysaa bal aan su'aalaha u dhiibo hal kalmadood insha Allah taala aynaya hay'adda Taybasaban oo keentay raashinka ilaahay waxaan u baryayaa sida ay noogu keeneen waxa khayrka qaba ilaahay iyagana inuu wax khayr qaba u dhaafiyo annagana ilaahay inuu noo raaciyo wax khayr qaba nimcada inuu noo shubo yaan ilaahay ka rajaynayna hawsha aad soo gasheen Allah idiga jazaa'ay mariyo waxa weeye abaartu dadka xoolaha iyo dadkiiba si xun baa u haysa dadku macnaha waanay dhimanu marka doorta ilaahay baa gargaar le ilaahay cirka noo keeno oo si degdeg ah Allah noo keeno laakiin dadkiina soo xusuustay ee islaamka Allah uu gargaaro iyagana waxa weeye ilaahay ayay sugayaan marka waxa weeye idagana aad baad u mahadsantiin oo idigu mahadnaqanaa ilaahayna taageerada haydin kordhiyo anu ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa iyo islaamka noo keenayba mahad ilaahay baan u naqaynaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu raxmaadkiisana noogu daro inuu ilaahay macaawimadana loo keenay macaawimadiisana ilaahay baa wax caawin kare oo macaawimadiisana ilaahay uu noogu daro abaaraha nooga sakhiro maanta waxaan ku suganahay deegaanka sabwanaag ka tirsan degmada awdal gobolka awdal ka tirsan tahay gaar ahaan degmada idila halkan waxaan maanta u nimi deegaankan inaanu soo gaarsiino sida aragtaan deeq ka timi dalka UK gaar ahaan magaalada London oo ay isku soo ururiyeen oo deeqda ku soo deeqeen dhalinyaro isu tagtay oo la yiraahdo Taybasaban oo nu ka tirsanahay Hargeysa qaar qolna ka joogto qolna ay xagga Ingiriiska joogto lacagta badankeedana soo deeqay qolada Taybasaban Ingiriiska aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaanu maanta halkan dadweynahan reer Sabwanaag aan soo gaarsiino deeqdan iyagoo ay abaar baan ku baasatay iyo biyo la'aan heshay marka aad baan ugu faraxsanahay inaan soo guddoonsiino dadka qurba jooga ee kale ee community-da iyo wadamada kale Ingiriiska aan ahayn waxaan jecelahay aan fariin u diraynaa inay qayb ka qaataan si uu deeq u soo gaarsiinayaan walaaladood dalka jooga abaarta ku habsatay Taybasaban waxaan leenahay jazaakallaa khayr cid kasta oo ka qayb qaadatay inay soo gaarsiiso deeqdan dadweynahan aad ugu baahan waxaan leenahay arintan sidaynu u bilownayba bishii Ramadaan ee sanadkii hore joojin mayno waanu wadaynaa gobolka gobol degmada degmo insha Allah waxaan iska heli doontaa ajar iyo xasanaad dadka kalena insha Allah mustaqbalka ugu dayan doonaan marka dadka Soomaaliland haday is gacan qabsadaan oo ay wax isu taraan wax wada arintan ka weyn baan sameyn doonaa oo sameyn karaya marka waxaan leenahay Taybasaban
way ku dayasho badan yihiin waana mahadsan halkan imika waxaa nagala jooga afhayeenka table 7 ibraahim ismaaciil oo afar cisho magaalada la joogay arrintan aad u soo abaabulay ibraahim iyo aadan ismaaciil بسم الله الرحمن الرحيم دمان ددك شرفت له كان نغلا سودا تي في-ga waxaan leenahay hallo gurmado dadkeena waa aniga Ibrahim Ismaaciil Axmed intaayna mar labaad tan kale ku kulmi doono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh